بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله horta waan idin salaamaya gedigiinba waxaan doonayaa inaan warbixin yar oo kooban idinka siiyo marka hore safar aan ku tagnay Nairobi marka dambana waxaan jeclahay wax yar aan ka yiraahdo cilaaqaadkeena iyo Turkiga inaga dhaxeeya iyo tixraac warbixin uu shirito siiyay safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Voice America haddaan ku bilaabo markaa warbixinta ku saabsan safarkaygii aan ku tagnay Nairobi waxaan halkan kaga tagnay wafdi ka kooban aniga wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo madaxa hay'adda shaqaalaha iyo madaxa maxadka tababarka shaqaalaha safarkaygaasu ujeedadiisu waxay ahayd sidii aynu heshiis ula seexan lahayn bangiga dunida amba World Bank heshiiskaasoo ku saabsan mashruuc lagu xoojinayo oo lagu tayeenayo shaqaalaha dawladda oo soconaya muddo 5 sanadooda qadarkiisuna uu yahay $10 milyan marka hore qaybtii hore sanadka hore oo ah 2 milyan iyo badh ayaanu soo saxinay mashruucaas wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood qaybta hore waxay ka kooban tahay tira koobka shaqaalaha iyo casriyeynta qaab bixinta mushaharooyinka iyo nidaamka pensionka oo runtii aan u baahanahay sharciyada siyaasadda shaqaalaha intaas ka kooban yahay qaybta labaadna waxay ka kooban tahay wasaarado iyo hay'ado gaar ah oo la doonayo si gaar iyagana in loo tayeeyo qaybta saddexaadna waxa weeye sidii loo xoojin lahaa curinta iyo fulinta iyo dabagalka siyaasadda waxaana la xiriiraa wasaaradda madaxtooyada iyo qaybta afraad oo ah maamulka mashruuca marka wada saas baa si fiican ugu soo dhamaaday runtii arrinkaasi oo arrin aad iyo aad u muhiim ah waxaan isleeyahay markuu noo dhamaado insha Allah wax badan ayuu ka bedeli doonaa tayada shaqaalaha dawladda haddii aan u gudbo qaybta xiriirka innaka iyo Turkiga waddanka Turkiga waddan aynu leenahay cilaaqaad qoto dheer oo fog waxaa jirtay mar inaanu kaba mid ahaynba maxaan yiraahdaa maamulkii maxaan yiraahdaa dawladdii islaamiga ahayd ee Turkigu markaa uu hogaamiyaha ka ahaa waxay halkan inala joogeen 1874 ilaa 1884 baan malaynay muddo 10 sanadood ilaa 14 sanadood ay halkan Turkigu inala joogeen intii ay inala joogeen runtii waxyaabo fara badan ayay dhiseen oo ilaa iyo maanta aynu intifaacsano oo ay ka mid tahay biyaha berbera iyo dekedda kalluumaysiga ee berbera inta ay ka mid yihiin waxaa jiray dhismayaal fara badan oo imika u baahan runtii in la dayactiro oo ay naga ballan qaadeen in dayactiran iyaga laftigooda marka waa waddan runtii taariikh dheer ay naga dhaxayso aynu asxaab nahay qadarino berigii dhaweedee la isku dayay inqilaabka runtii waanu la xiriirnay inaanu aad iyo aad uga xunnahay in la isku dayo in la afgembiyo dawlad si dimuqraadi ah loo soo doortay alxamdulillaah wuu dhicisoobay dhinaca kale haddii aynu Somaliland nahay Somaliland waa waddan jira maaha mid hadda la curinayo maaha waa waddan taariikh leh weey inagoo laga soo bilaabo 1887 ilaa 1960 waxaanu ahaan jiray maxkamad kamid ah maxkamadihii faraha badnaa ee waddanka Ingiriiska hoos yimin jiray maabkeenu ku niili xitaa caalan gaar iyo astaan gaar ah baynu lahayn 1960 markaanu xornimadan qaadanay baarlamaan baynu lahayn prime minister baynu lahayn dawlad baynu lahayn laga diiwaan geliyo laga aqoonsaday jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa inagoo dawladda waan ciidanayna khasbeenin ayaynu dawladdii Soomaaliya maxaan yiraahdaa go'aansanay inaynu isku darsano isku darsigaas runtii inkastoo aanu nidaamkii sharciga ahay la rabay marka aanu raacin haddana muddo 30 sanadood ayaynu isku jiray 30 sanadood dhibaato badan ayaynu kala kulannay khaasatan intii dambe dadkeenu iyagoo markaa tixgelinaya dhibaatooyinka ka soo qabsatay muddadii aynu isku jiray
ee aynu inankii Soomaaliya isku ahayn waddanka iyo dowladda ayaa waxay go'aansadeen inay la soo noqdaan xornimadii markii horeba ay haysteen intayna ku darsan Soomaaliya muddooyinka 25 sanadooda ayaynu saa u ahayn waddan gooni u taagan oo xora oo dimuqraadiya oo buuxiyey shuruudihii laga rabay waddan oo dhan inaynu waddan nahay inaynaan cidna marti ugama nihin caalamkuna saasuu inoo aqoonsan yahay haddaan saa laynoo aqoonsadin heshiis laynalama galeen oo laynalama saxideen hay-adaha caalamigaa baynu heshiis la gallaa waddamadaynu la gallaa marka madaxdeenu ay tagto waddamada kale waxaa loo soo dhaweeyaa oo lagu soo dhaweeyaa masabka marka ay leeyihiin madaxweynaheena waxaa la siiyaa soo dhaweynta iyo brotokoolka madaxweynayaasha la siiyo marka runtii arrinkaas imika cidna ugama martini calam baynu leenahay oo astaan inoo gaara lacag inoo gaara baynu leenahay baasaboor inoo gaara baynu leenahay baasaboorkeenu inkastoo baasaboorka waliba uu yahay aqoonsi haddana dee muwaadiniinteenu waxay leeyihiin aqoonsi gaara baynu leenahay iyo baasaboor gaara saas baana ku qoran xagma kaga qoran waxaa jira waddamo badan oo aynu caalamku aynu ku tagno baasaboorkeena oo laynoo viiseeyo taasoo runtii dee tilmaamaysa amba sheegaysa in laynoo aqoonsan yahay inaynu nahay waddan isagu maamulkiisa leh oo aan maxaan dhahay qayb ka ahayn waddan kale waxay taa jirtay Turkiga laftigiisa in dee dhowr jeer aynu tagnay baa jirtay oo viisooyin aynu ku tagnay noocay doonaanba ha ahaadaane Turkiga laftigiisa halkan wuxuu ku leeyahay safaarad buu ku leeyahay qunsuliyad buu ku leeyahay iyada laftigeedu waxa weeye waa astaan bay ka mid tahay qarannimadeena iyo jiritaankeena waxaa jira iskuul la yidhaahdo Nile Academy oo Turkigu hay'ad Turkiya ay gacanta ay ku hayso halkan Nile Academy-ga waxaa lagu xiriiriyey inay gacan saar leeyihiin ambaba ay hoos yimaadaan ururka uu madaxda ka yahay ninka maxaan dhahday imka loo aaneeyo inuu ka dambeeyey inqilaabka Turkigu waxay naga codsadeen inaynu iskuulka xidhna bay naga codsadeen innagu dee waddan baynu ku shaqeeyeen nidaam iyo sharcigu iskuulku ku dhisan yahay oo ku joogaa shahaadad buu haystaa heshiis baynu la galay muddo dheera in halkan maxaan dhahday ay hawlahooda ay ka wataan arday badan bay noogu jirta waxaanu ku niri waxaanu sameynaa anagu baaritaan baanu sameynaa haddii ay soo baxdo in iskuulkaas uu inqilaabka uu la kuleeyay sharcigeegu wuxuu ka yidhaahda ayaa laga yeelayaa haddii ay soo bixi weydana dee waxay noqonayaan dad aan dembi aan lahayn marka waxaan rajaynayaa runtii in arrinkaa iyo go-aankaana ay walaaladeen inagu ixtiraamaan ayaan runtii ayaan rajaynayaa oo wixii markaa inagu aynu danmoodno inagoo sharcigeena raacayna inaanay cilaaqaadkeena aanay saameyn ku yeelanin waxaan yacni runtii aan quudaraynaynaa in cilaaqaad intan ka sii adag Turkiga aynu yeelano waxtar badanna waynu ka rajaynaynaa waynu ka quudaraynaynaa marka waxaan rajaynayaa arrinkaas inaanu waxba u dhimin waxa xiriirka aynu leenahay iyo geedi socodka sii xoojinta xiriirkaas aad bay u mahadsantihiin horta inagu waxaanu leenahay ID baynu leenahay aqoonsi muwaadin baasaboorna waynu leenahay baasaboorkeena in la yidhahdo baasaboor maahe waa ID amba waa aqoonsi keliya kaa cidna marti ugama nihin waa baasaboor baynu leenahay inagu in baasaboorka ay fiisanayaan si ay markaa u heshaan dooq kale oo dugsigaasi lagu xidho Turkigana qaybtiisa muqdisho kiisu markuu ka soo baxaa iyaguna waxay arkaan inay tahay nooc ka mid ah aqoonsi qof la siiyo laakiin baasaboorku waxay aqoonsadeen aanay jirin arrimahaas sidee u aragtay haddii muqdisho ka dhacaya safaaradda iyo qunsuliyadda horta ka sokow iyaga aragtiyooyinkooda kala duwan inagu waxaynu nahay qaran astaamale astaamihina waxaa ka mid ah baasaboor wadamo badan waynu ku tagnaa Turkigana waa lagu tagaa marka ma baasaboor baa mise maahe waa ID runtii arrin cid ba u yaalaba maaha waayo waa baasaboor la aqoonsan yahay oo la viiseeyo marka in ID ku tilmaamaan baasaboor waxaad ku sheegayso
haddii iyagu ID u haystaan miyaanay ahayn meelkadhac lagu wado baasaboorkii de runtii ID maaha waa khalad in lagu tilmaamaba ID waa baasaboor weeye saacaddu si dhinaca haddaan su-aalka weydiiyo waddanka Turkiga waxaa ka socday wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyey runtii dadka